السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديوغان waxa uu daaran yahay update ku saabsan shirkadda Ombasif. Marka hadda aad ka tirsan tahay shirkadda aad iyo aad ku anfacaya biidnillaahi tacaala. hadduu ku soo gaarana fadlan waxaan ka codsanayaa inaad sii gaarsiiso walaalkaaga kale ee Soomaaliyeed ee ma aragtay asagana ka faa'iideysanaya oo shirkaddan ka tirsan. update koobaad walaali wuxuu yahay sidaad ogeydeen shalay Maarta Digamo wuxuu soo dhigay Ombasif founders walaalaha collaborator sellers kana ma aragtay waa loo soo gudbiyay sidaan jecelahay. marka haddii aadan wali faahfaahin dheeri aadan ka helinin waxa uu ku saabsan yahay attentionkaas ama ma aragtay digtoonidaas ama in loo digayo dadka waxa uu ku saabsan yahay xagga maxaa la yiraahdaa walaalo badan oo waxa jira email marketing qaldan oo MLM ah loo soo dirayo marka waxa weeyaan oo Ombasif in maaragtay lagu suuq geynayo laga dhigayo video macnaha emailkaas inuusan mid sax ahayn ayuu Maarta Digamo sheegaya walaalaha participationka ka qaata ama videogaas ama emailkaas soo share gareeyana in aysan ma aragtay caqabad hadhow la kulmi doonaan xagga shirkadda marka ay baaritaanku ay shirkaddu ogaato dadka noocaasa inay ma aragtay ku weydiin doonaan positionkooda hadday founder yihiin iyo hadday reseller yihiinba. marka walaale in arrintaa laga digtoonaado oo waxa weeyaan sharciga la raaco oo ma aragtay email marketing Ombasif ayada ayaa isugu filan suuq geyn iyo ma aragtay xayisiis. marka adiga wax ka codsan mayso video marketing inaad u samaysid marka videogaas la isla dhexmarayay ma ahan mid sax ah waa mid khalad ah wax shirkadda ka soo baxayna ma ahan waa wax niman inta samaysteen ay rabaan dadka inay ku qaldaan oo informationkaaga ay ku xadaan oo waxa weeyaan adiga waxaaga hadhowtadii dhibaato kaa gaari karto akoomadaada. marka arrintaas ka foolajignaada oo ayaan la samaynin. waxaa kaleeto oo update ah CEO-geena Ash maanta wuxuu kasoo qayb galay kollaba anigu waan shaqaynayay oo waxa weeyaan weli update-kii lama soo dhigin back office-ka Colbert ayaa maaragtay soo update gareyn doona inuu maaragtay waxa la yiraahdo Monday Funday oo ma aragtay ay maalinta axadda ka dhigeen oo gabadha Jane iyo Red xaaskiisa iyo asaga ay mar walba maalinta sameyn jireen maaragtay isniinta ah ayay ma aragtay maanta waxay qabteen oo axada maadaama Christmas-koodii iyo ay maaragtay maanta u dabaaldegayeen halkaasna ashuu ka soo qayb galay dabcan warbu ka jeediyay laakiin aanu shaqo ku jiray welina back office lama soo dhigin marka ugu horeyso insha Allah la soo dhigana waa isla soo socodsiinayna haddii uu wax new ah sheegay. waxa kale oo muhiim ah iyadana oo update ah in OES keena lagu soo daray KYC-gii ama iscadaynta maaragtay Ombasif oo KYC-ga Ombasif oo verified laakiin wali ma aragtay waa just maaragtay conditions waxa la yiraahdo term and condition ayaa lagu soo daray si dadku u sii akhristaan waxyaalaha ay looga baahan yahay waxyaalaha iska ilaalinayaan. marka term and condition-kaas insha Allah ishaad iska marin doontaa laakiin weli oo verified-kii lama soo dhigin asaga oo documentigii iyo wixii la gelinayo ma aragtay lama soo gelinin laakiin just waxa weeyaan inaan qofku sii akhristo oo waxa weeyaan uu warbixinta sii qaato oo ma aragtay waxyaalaha shuruucaas haduusan berri buuxin karinin uu ma aragtay ka foolajignaada hadda ayaa loo soo dhigay. marka insha Allah asagana waad iska akhrin doontaa. waxa kaleeto oo muhiim ah in ma aragtay haddii ilaahay yiraahdo maalinta arbacada maadaama la rajaynayo wax badan inay 360-ga ama ka hor hadduusan CEO-geena uusan qabanin maaragtay webinar kollaba 360 ayaa lagu rajawan yahay sidoo uu CEO-geena afa ku dhuftay Ash habeenkii ugu dambeysay in ma aragtay ay soo wadaan wax la yiraahdo roadmap waxa weeyaan waa connect waxaan soo wadnaa buu yiri iyo productyaasha roadmap-kooda ama ganacsiga roadmap-kiisa ayaa soo wadnaa. roadmap waxa weeyaan wadada la marayo waxa laga filanayo maaragtay hadday commission balaankii tahay hadday tahay bonuska hadday tahay wixii sidii u soconayaan wuxuu yiri waxaan barbeer gareynaynay oon ku mashquulsanayn waxa loo yaqaan roadmap-ka. marka aad baan ugu faraxsanahay mar haddii roadmap-ka naloo keeno wax kale oo Ombasif ka dhimano ma jiraan shaqadeedii maasha Allah. sidoo kaleeto waxyaalaha badan oo ka mid ahaa update-ka CEO-ga waxaa ka mid ahaa in ay ma aragtay
diyaariyeen ama diyaar gareeyeen waxyaalihii nala kaga baahnaa xagga sharciyadii wax badan waxaa kale oo muhiim jiddan ah in maaragta dadka walaalaha aysan maybe qaarkood fahamsanayn ashbam ayuu sheegay CEO-geena maalmo ka hor oo uu yiri ma aragtay ashbam ayaan maaragta soo wadnaa marka waxaad arkaysaa walaalo badan dhahaya aawa ashbamku sheegay maalmihiidood muu mention garaynin aaway in December ashbam dhacayuu yiri CEO-geena taasaa marka rabaa inaan idinka qanciyo walaalayaal habeenkii ugu dambeysay CEO-geena ash wuxuu yiri waxaynu diyaarinay bishii November ashbam oo aan rabnay in aan December ku dhawaaqno oo aan soo fasaxno laakiin buu yiri waxaa jidka inaga haysta ama maaragtay wadada aan wali nooga banaanaanin lacagihii bendinka ku jiray oo waxa weeyaan aanan wali dadkii caqabada jira awgood aanan wali u fasixinin taasaa weyga naga celinaysa taas marka waxay ku sheegaysaa in ay maaragtay waxyaalihii uu ballan qaaday ama komishiyaashii ha noqdaan bonus ha noqdaan dhaqaale inay tahay ashbam ayaa halkaa kaaga cad oo waxa weeyaan uu yiri we have to clear the way marka hore inaan jidka ka leexino lacagahan bendinkaasi aan ma aragtay ashbam aan usoo fasaxno macnaheeda halkaa waxaa ka dareemi kartaa inay dhaqaalo tahay ilaahay wax khayr qaban ha inooga keeno arrintu way socotaa be positive stay tuned insha Allah ta'ala waxaan create gareeyay maxaa la yiraahdaa WhatsApp channel oo aad iyo aad u fiican oo runtii aan raba in insha Allah waxyaalaha informationada aan kusoo post gareyno kusoo join garee wadamada inta badan qaar uusan ogoleen laakiin hadduu ku ogol yahay aad u fiican yahay waa bila shanqar waa bila buuq wax maaragtay message kugu soo dhibaya malahan just join meesha note-ka ama meesha ay waxa walba waxaan ku qori doonaa meesha announcement ku qorantaa ku dhajin doonaa information walba halkaas ayaadna kala socon doontaa biidnillaahi tacaala hadduuse weli kuu suurtagelina guruubadaadii hore ayay maaragta walaaluhu kuu soo dhigi doonaan laakiin hadda kadib anaga waxaan isticmaali doonaa channelka announcementigiisa insha allahu tacaala guul iyo gobonimo idin rajeynaya iyo in channelkaasna lagu soo biiro meesha yar walaal flow ay ku qoranto korona taabo si aysan waxba kuu seegin hadduuba kuu suuro galo oo wadankaaga ولي مارتي available كيها قولي قبل ما يدين رجينيا وليش نفسات دونه إذن له قوليسته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته